الله ونحرسته waxa gabal dhici caawa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya aas qaran lagu sameeyay wariye Cawil Daahir Salaad oo kamid ah dadkii maanta ay ku geeriyooday qaraxyadii isxigxigay ee ka dhacay magaalada Muqdisho waxa aaska wariyaha ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo qaarkood horay xilal kaga soo qabtay dalka wariyaasha ku dhaqan caasimadda Muqdisho ayaa sidoo kale u kala harin aaskiisa تعسيد وريها وكبه الدنيا أيام الولي بتعلق الله ونحرسته وريا عول ظاهر صلاة وحى وسدت ميدي كشقيني راديها الدولة راديو مقدشة أو حلقة أها هلك إذا عد أو كلية إدلك كجرتي وحكلو وكمد أها مركي ودلك بربري لأن يردي إسكو دايدي إن يدب صونو ليان ورباهنتا وحى وسوسا رجريمت كمد ورجسيدي تردا يراء قعنت لو دابع جري sanadii 2000 ayuu wariye Cawil ku biiray idaacadda iyo telefishinkii Hon Afrique oo ahayd warbaahintii ugu horeysay ee maxalliga ama madax bannaan ee dalka ka hirgashay waxa uu sidoo kale qori jiray sheekooyinka gaagaaban waxa uu wariyuhu caan ku ahaa barnaamij la magac baxay dood wadaag ka oo looga hadli jiray arrimaha bulshada iyo xaaladaha taagan ee xilliga xaaladda magaalada Muqdisho markii ay xumaatay bartamihii 2005 ayuu wariye Cawil Daahir Salaad dalka isaga cararay isagoo u guuray qurbaha halka uu xirfadiisa saxaafadeed ka sii watay isagoo kadibna ku biiray telefishinka Universal oo uu barnaamijkii dad wadaag ka sii waday Allah uu naxariistay wariyaha ayaa dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxa uu u soo guuray magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaana aaminsanaa in xaaladda dalka ay soo hagaagtay wariyaal badan oo ay soo wada shaqeeyeen marxuumka ayaa sheegay in uu ahaa qof wanaagsan dabeecad iyo waliba la dhaqan fiican leh isla markaasina shaqadiisa yaqaan oo ka adag waxa da'diisa lagu qiyaasay wariye Cawil Daahir Salaad 45 sano waxa uu ifka kaga tagay xaas iyo caruur sida ay xaqiijiyeen qaar kamid ah eheladiisa gabal dhici caawa kadib aaskii qaran ee loo sameeyay waxa goobta warbaahinta kula hadlay qaar kamid ah eheladiisa iyo asxaabtii ay soo wada shaqeeyeen oo alla ugu baryay in uu jannatul firdaws ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan halkan u nimid inaan ku aasno walaalkeen saaxiibkan Allah u naxariisto Cawil Daahir Salaad oo ah wariye Soomaaliyeed oo kale saddex howlwadeen oo kale oo ka tirsanaa TV-ga Universal waxaan leenahay dhamaanteed Ilaahay u naxariisto Cawil waa nin la yaqaan waxa uu ahaa wariye Soomaaliyeed oo muddo waqti aad u dheer soo shaqeeyay tan iyo dawladii hore oo ka tirsanaa raadiyo Muqdisho ilaa haddana warbaahinta Soomaaliyeed ku jiray wuxuu ahaa nin dalka ku soo noqday oo waxa uu kamid ahaa dadka tirada yar ee dalka gudihiisa iyagoo dibadda jooga soo noqday halkan ka shaqeynayay marka waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa in gadaashiisa uu naafidnaynin isagana Ilaahay uu ka dhigo maaragtay qofkii naxariistiisa janno siiya sidoo kalena qoyskii iyo heladii dhammaan dadkii uu ka geeriyooday waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Ilaahay uu naxariisto idinkuna sabir iyo iimaan Ilaahay idinka siiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed maanta meesha wax ku gaareen Allah u naxariisto wixii dadka dhintay kuwa dhaawacmana Ilaahay u boogadayo gaar ahaan walaalkay Cawil Daahir Ilaahay jannada firdaws ka waraabiyo Abdulqaadir Arabey iyo Maxamed Dibad iyo Ibrahim oo ahayn wiilasha isaga la socday markaas ayagana jannada firdaws ka waraabiyo nugu isaga tacsiina dhammaan ummadda Soomaaliyeed khaasatan bahda saxaafadda waanu isku qabiilnahay hal loo duceeyo ani macallin buu yahay gaara la taliyaygu ahaa nina aad saaxiib u nahay buu ahaa saaka ugu dambeysay aan wada hadalnay Ilaahay ha u naxariisto inaan saragna ku ballanay laakiin ma noqon waxay noqotay inaan meedkiisa aan galbiyo oo aan maanta wax ka aaso marka inta dhimatana Allah u naxariisto eheladii iyo asxaabtii uu ka tagana Allah ha ka siiyo sabr iyo iimaan Ilaahay inta dhimatay Allah u naxariisto aamin annagana nolosha adduunyada iyo aakhirada Allah noo naxariisto dalkeenana Allah noo xasiliyo xasilooni loo dhan yahay lagu wada faraxsan yahay raali laga wada yahay Ilaahay ana siiyo dalkeen Allah noo xasiliyo dadkeenana Allah iswaafajiyo wax kasto oo ciriiri ah dhibaato ah Ilaahay anaga dulqaado inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maantay waxay noo tahay maalin madow Allah u naxariisto walaalkay Cawil Daahir Salaad iyo Arabey Ibrahim iyo Dibad oo ayagana la geeriyooday lana socday waxaan rabnaa inaan maaragtay
walaalkeen iyo wiilashii la dhintay oo la geeriyoodayba inaan u duceyno ilaahay jannatul firdaws geeyo annagana gadaashood ilaahayna fidnaynin sida annaga aan ka warqabno caruurta uu ka tagay caruurta dal iyo dibad waaye qaarna dibadday jiraan oo caruurtiisa qaarna dalkay joogaan xaasasna intaan ognahay 3 xaas ayuu lahaa waa Cabdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidko idin lahayntii dhimatay Allah u naxariisto magaaladu waa caasimadda Muqdisho telefishinkuna waa Somali Cable